munaasabadani oo ay ka soo qayb gashay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Sweden ahna wasiirka wasaaradda horumarinta dalkaasi Mrs Bella ayaa kulan la qaadatay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Makaraan iyadoona lagu qabtay xarunta dhalinyarada gobolka Banaadir waxa xafladda ka hadlay oo soo dhaweeyay gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Makaraan ka qurux badan sidaan oo ka weyn waxaan rajaynaynaa insha Allah taala maanta booqashada ay soo booqdeen safaaradda Sweden iyo madaxa UN Habitat Spirita iyo dhammaan safiirada imaadeen waxaan dheeynaa ku soo dhawaada waxaan rajaynaynaa inay noqoto xaruntan xarun ka weyn oo qurux badan dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan wax badan ay soo gudbi doonaan wax badan ay ka baran doonaan aad u mahadsantiin ugu dambeyntiina waxa halkaas ka hadashay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Sweden I think it's very important that this youth center is now providing a space for the future of Somalia. We're following very closely the elections, and we're very, very happy to see that more youth and more women are coming into the parliament, and we expect that. Su'aal Ege Jaamac waa Beri TV Muqdisho.